Social media ayaa waxaan ku aragnay fiidiyowga uu ka muuqdo dayax oo xeen gabdhaha ay ku orinayaan. Isla dhanka kale waxaan ku aragnay dayax qadarkeeyo oo xeenta gabdhuhu aad ay u soo dhaweynayaan. Dadka social media iyo fanka ku dheereeyo ayaa arrintan indheeyay, waxayna ku micneeyeen micnooyin kala duwan, marba dhan loo rog. Dadka qaar ayaa arrintaas ku macneeyay in dayax waayihiisii fanka Muqdisho ee haysataankii muddo badan uu ka talinayay kursiga Muqdisho dhanka fanka inuu halkaa ku soo idlaaday. Inkastoo dadka fanka inta badan indheeyay aragtidaa aysan qabin, dadka qaar ayaa ku micneeyay xeenta gabdhaha in ay u badnaayeen iskaabulo. Dayaxna inta badan uu social media ka sheegay inuu xaaskiisa qura ku ekaanayo, aysan xaas kale u la wadaagaynin. Xeenta gabdhuhu ayaa u arkay fursad qaali ah qadarkeeyo, maadaama uu yahay xidig inta badan haasaawuhu dumarku aad u jecel, jir ahaan iyo qurux ahaanna aad u diyaarsan. Dumarka ayaan u hanqaltaagayay kuraastaas in ay ku fadhiistaan. Sidaa darteed xeenta gabdhuhu ayaa sacab ugu bedelay siday qalbiyada qaar ay u qabsadaan. Laakiin dhabta markii laga hadlo, labada fanaan waayihii ugu dambeeyay iskuma fiicneen. Inkastoo dayax uu ahay ninka magaaladan fankiisu aad u soo ifbaxay, qadar oo arrintaa xurguf xoogan iyo xanaaq ka muujinayo, mar wuxuu jecel yahay inuu kursiga fanka ee magaalada Muqdisho uu ku fadhiisto. Dayax oo inta badan qof aad u jilcan, aan ahayn qof aad u dad badan dadka la sheekaystay iyo dadka waqtiga la qaata ay sheegaan inuu yahay si ahaan qof aad u wanaagsan, dadka masaakiintana aad u jecel. Sawirada oo inta badan soo dhigo kuwaasoo ka muuqda qadarkeeyo ayuu soo dhigaa bartiisa. Inkastoo qadarkeeyo weli uusan soo dhigin sawir iyo dayax iskula jiraan. Labada fanaan markay goobo xalfadda ay ku kulmayaan inta badan way isku dhoola cadeeyaan, midka kale ayuu sawir la galaa. Taasna ma muujinayso inay labada fanaan isku fiican yihiin, laakiin waxaa jira dagaal dhanka xarbiga ee qalbiga ah. Qadar had iyo jeer wuxuu ku hanweyn yahay mar inuu arrintan uu Muqdisho dhanka fanka asiga la wareego. Heesaha inta badan qadar uu soo saaro ma ahan kuwa guuleysta. 10kii heesooda ugu dambeeyay ma ahan kuwa la tartami karo 10kii dambe ugu dambeeyay hees oo dayax soo saara. Markii loo eego dhanka suburhidnimada, dayax suburhid waay heesihiisa inta badan aad ayayna loo jecel yahay, maadaama dadka Soomaalidu romantiga ay yihiin. Dayax heesihiisu waa heese ka turjumaya jacayl inta badan aan wax nacayb ku dhisnayn. Dayax ayaa inta muddooyinka ugu badnaa xalfooyinka magaalada Muqdisho aad loogu yeerta, wuxuuna inta badan ka qaadaa heesooyin aad u qurux badan kuwaasoo soo jiidasho leh. Qadar oo asna fanka ay isku mar soo galeen ayaan arrintaas aad ugu ruqaansanin amase aan jeclaysanin. Xoogaa wuxuu mar u soo muujiyaa mararka qaar markii wareysada uu bixinayo inuu micnaha uu sheego inuu dayax isku fiican yihiin, laakiin dhabta jirta ayaan sidaas ahayn. Inta badan dadka caanku markii wareysada ay bixinayaan waxa ay sheegaan wax inta badan runta ku salaysan ma ahan. Markii dagaal iyo xurguf ay jirto si hoose ayay isku weeraraan. Bal hadduu qadar run sheegayo, waxay ahayd dadka fanka ka takhasus waxay leeyihiin waa in markii xalfadda uu heesta ka qaadayay waxaysan ahayd inuusan ka qaadin, maadaama saaxiibkiis xalfaddaasi lagu sumcad dilay, inuu heestaasi joojiyo ayay ahayd. Waay ugu qaaday ayay leeyihiin dadka fanka aadka u indheeya. Taasna waxay muujinaysaa qadar cadaawadda uu qabo dayax dal nuursho iyo uu hanqaltaaga fanka inuu had iyo jeer uu libinta ku hela dhanka magaalada Muqdisho, ha ahaatee dhanka xalfadaha iyo aroosyada iyo goobaha dowladda iyo xalfadooyinka dowladda ay qabato inuu had iyo jeer mudnaanta helo ayuu aad u jecel yahay. Waa dadka siday sheegaan fanka magaalada Muqdisho ayaa tartan xoogan labadan fanaan u dhaxeeyo. Inta badan qadar ayaa inta badan dadka fanka tartanka geliya, waa sida ay dadka u sheegaan dadka fanka aadka u falanqeeya. Dayax dal nuursho iyo qadar arrintan weli maysan ka hadlin.
فيديوغن لايك سارة waxaan rabaa inaad fiidiyogan like saartiin inay lacag lagama qaadaye like iska saar ha adaan kula hadlayaa